جزاك الله شيخ إلى هذا الدول لما هي سينسي هندي دي قبردي عافمات كمية شيء سيدا يقولون حصتي دو يطلع له جهر تيكر لكن شيوخ صومالي أو دور لبا إلى صدق الشيخ أما لبس أنا هذا الشيخ بابا حيجي الشيخين إني دودي هيان أو لبسي إن أدق وبلغ قاعدة يعني قفك كدوين ين دودي هيان تحس ضررت سألوا الشيخين حنو والله إلهي سبحانه وتعالى وسود كيو إلهي دودي الصراعية لكن dawada marna ilaahay adoomaha ayuu u bidbiriyaayo u iftiimiyaayo ogaado garta marna ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka qariyaa shakina kuma jira ilaahay subxaanahu wa ta'aala arinta inuu xikmad iyo ujeedo weyn uu ka leeyahay xanuunkan oo kale dawo isaga u gaara oo la oranayo waa dawada xanuunka ama fayraska la yiraahdo corona oo ilaa hadda caalamka lagu sheegay ma jirto wadaadada marka dhiraha qaarkood لا ودوا درتي wax lagu daweeyaa waxay la mid tahay wax lagu daweeyo dawooyinka kale waa arin aqoon u baahan marka koobaad qof leh xukum daweyn karo waxa kale ay u baahan tahay tajaarib in dad lagu tijaabiyo oo qadarka qofku uu qaadan karo ama uu xutari karo laftiisana la soo saaro markaas sida la yaqaan cilmiga la yaqaan la oran karaa waliba dad tiro badan lagu tijaabiyo oo dadka culimada saynisku tira ay sheegaan iyagu waa in tiradii ay gaadho markaas la oran karaa geedkan gaarka ah xanuunkaasi gaar ayuu uga daweey yaan la isku khaldin dawooyin guud oo shariicadu ay sheegtay sida xabaasuud oo kale malabka oo kale waa dawo guud laakiin lama oran xanuunkan ay si gaara ay dawo uga tahay marka aad iyo aad isaga hubsadabaan leeyahay dadka iyagu sheeganaya inay heleen dhiro xanuunkan si gaara waxa weeyaan dawo ugu ah laakiin waxa leeyahay waxyaabaha ay shariicadu sheegtay inay guud ahaan dawo yihiin sida malabka oo kale oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu fiihi shifaa'un linnaas xabaasuud oo kale oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yiri wa dawaa'un min kulli daa iyo kuwa kale la midka adilada ku soo arooray qofka muslimka waa inuu isticmaalo xanuunkan uu ku dhacayo qof kasta uu ku dhacaaba iyadoo iyaga laftoodu ay u baahan yihiin qofku qadarka uu ka isticmaalayo ay dadka laftoodu isku mid maaha waxa dhacday waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo u sheegay in walaalkii shuban uu ku dhacay oo calooshu ay furantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri isqa akhaaka casala walaalkaa malab sii uu ku yiri shaki baa inaga jira malabku inuu daweeyay إلهي بابا الشيخ شكيني ما جرى دين ونهاية القرآن كرميسا أو مؤمنين نينكي مركو ملب كي عبي وكسي درج وحرسولك عليه الصلاة والسلام قصة نقضي ولالكي أولا رسولك لا وكسي درج رسولك عليه الصلاة والسلام حكولي كعلي معناه واضح ملب كوا الدو لكن سيد الصحة هذا الدانة دو استعمالي هذا كرتينا وناديك الدو كوا نقول حبة السوداء حباسود والدو لكن انت aduga baahnayd adigu iyo qadarkii xanuunkaaga saalaan dawo ka noqon karay hadaanad ka isticmaalin dawo ku noqon mayso hadii aanay saaso kale yaqiin iyo aqeeda aanay la socon sheekha isagu yiri iigeey qofkii xanuunsanaya xanuunkan ku dhacay ana daweynay oo waliba aadka u adkeeyay yiri hadii aan daweyn kari waayo aniga habelay dilo bal aragtida iyada ka war warkaas haduu jiro waa waraad u khaldan weey horta qofku haduu qofka quraan ku akhriyo haduu u duceeyaba ma oran karo illa weelo bogsanaya way bogsashadu waa xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayaan oran jirin qofkan anigu quraan ku tufo amaan u duceeya markaaba uu bogsanaya ilaahay uu bari jiray waliba bariya ay ka dhex muuqato inaanu isagu wax shaafiya inaka wax shaafiya ilaahay uu qoro yahay اللهم اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك إله شافي أدا وح شافية بكسش ما تشرتو مد أدق وعد كنتو حاجة على جهة الموياني رغف كونه يسقو أول شيء تطور هذا دو دورة إرجع بإذن الله يبر رعيه لكن الدورة إلا قف كسوق بكسنة وعرق خلدموي والشريعة خلاف إنه كوب بكسنة إنه كوب بكسنة إلهي به والسبب وحدا كرتين سببتي لريه ماذا سببته صار شرعي راه نقطه وقرآن قف كلو آخريان نقطه إلا الدعيان نقطه إلا السيئة نقطه درأي جيدة الشريعة يدوك شكل وهذا نقف كانوا كوب بكسنة
oo sababtii waaba lala yimi muxuu ugu bogsan waayey dee sababtu iyadu iskeeda waxba uma qabato ilaahay baa subxaana watacaala hadduu awood u yeelana shaqadeedii bay qabanaysaa haddaanu ilaahay awood u yeelina shaqadii qaban mayso waxaa dhici karta inay jiraan mawaanic waxyaabo diidaya qofkan shaygan inuu ku intifaaco waxaa dhici karta qofka in ducadii loo duceeyey la aqbalo ama qur-aankii lagu akhriyey inuu ku bogsado waxyaabo diidaya oo aan wanaagsanayn oo isagu ku sifaysay inay jiraan baa dhici karta ta kale qofka muslimka muxuu isu kalifaya u odhanayaa hadduu qofkaasi bogsan waayo aniga idila in la dilaa hadduu war hadalkaasi jiro su-aasha aad weydiisay in la dilaa sharcan miyay bannaanta haddaan anu qofka qur-aan ku akhriyo ama aan u duceeyo oo uu bogsan waayo inaan idhaahdo aniga ha lay dilo dilkayga aan banneeya sharciyan wax bannaan maaha wax shareecada aad iyo aad uga soo horjeeda oo naftaadu waa naf ilaahay dilkeediiyo goynteeda u xaaraantimiyey maxaad adigu u fasaxaysaa waxaan iyada awooddeedaba aan ahayn hadduu dhici waayo maxaad u fasaxaysaa naftaada in la dilo waa hadalkaasi hadal saxa maaha qofka muslimkaahina inuu awoodihiisa dhaafo maaha qofku waa odhan karaa anuu qofkii qur-aan sen horeba u tilmaamnay qur-aan baan ayaan ku akhrinayaa isagoo isaga laftiisu sababtii ku dadaalaya oo ka gaashaamanaya xanuunka wixii laga xidhanayey ka xidhanaya oo maaha qofku inuu waxa weeyaan yidhaahdo anigu awoodo gaaraan leeyahay oo waxba igu dhici maayaan oo qofkii waa bani aadam waana makhluuq awooddiisuna way xadidan tahay asbaabtii xanuunada iyo dhibaatooyinka lagaga badbaadayay inuu la yimaadaana oo wax shareecadu ay amartay weeyaan marka hadalkaasi hadduu jiro hadal saxa maaha wallahu aclam